السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوينها الصوماليات وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كيما نشري معاد كوالد نمو برنامج كان وحو انت بدن ديرada saara arrimaha qoyska caruurta laakiin mararka qaar koodna uu ku soo qaxtaa arrimaha ma garanaysa bulshada iyo siyaasadda sababtoo waxa weeye hadii bulshada iyo siyaasaddu inoo hagaagaan qoyskuna waa inoo hagaagayaan walaalayaal waxaad sidaad wada ogtihiin baryahan eed weyn u jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ninka caanka ah ee loo yaqaano boqor buurmadow waxa weeye nin oday oo ka tirsan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed wuxuuna muujiyay runtii saluug aad iyo aad u ballaaran oo ku aadan sida madaxweynuhu u maamulayo dalka saluuga uu sheegay ama magaranaysa eedda uu dawladda u soo jeediyay waxa weeye mid ku aadan in si aan cadaalad ku dhisnayn magaranaysa oo aan sinaan ku dhisnayn uu madaxweynuhu u maamulayo hantida iyo kheyraadka magaranaysa dawladda federaalka badanaa laba siyaabood ayay dadku manfac uga helaan ama faa'iido uga helaan mid waxa weeye waa adeegyada ay bixiso oo magaranaysa waxbarashada iyo caafimaadka iyo wadooyinka iyo biyaha iyo wixii la mid ah midna waxa weeye shaqooyinka dawladda laga helo buurmadow wuxuu sheegay in labadaas ba gaar ahaan xagga shaqada ay ku koomeen madaxweynaha iyo inta magaranaysa reerkiisa oo isaga u dhadhow si cad ayuu sida u yiri marka arintani runtii buurmadow uu keenay ma aha mid la yaab leh sababtuna waxa weeye sidii madaxweynuhu u dhaqmayay ilaa hadda iyo magaranaysa ficilada uu sameeyay ayaa muujinaya inuu yahay nin runtii yani arrimaha dhinac u badan oo dhinac u janjeera waxaan xasuustaa madaxweynaha oo malaha ay soo gaareen eedo iyo magaranaysa dhaliilo ah inuu maaragtay dad gooni ah ama dadka reerkiisa uu maaragtay shaqooyinkii wax caynka u badiyay mar hore buurmadow waa ka horeysa arrintan jawaabtii uu bixiyay waxay ahayd mid runtii aan hagaagsanayn wuxuu ku jawaabay dadku waa haystaan 4.4 waxay xaq ugu lahaayeen wasiirada iyo golaha ma garanaysa baarlamaanka wixii kala shaqo kuma laha taasu ma filayo inay tahay arrin caafimaad qabta ama nin madaxa inuu sidaa ku jawaabo runtii oo wax ummadoo dhan u dhaxeeyo uu yiraahdo aniga sidaan doono yeelaya idin shaqo kuma leedin runtii taasi ma habboona waxay ahayd inuu hadduu run sheegayo oo sida cadaaladu tahay uu si cadaalad oo at least siman dadka Soomaaliyeed uu magaranaysa shaqooyinkii wixii isaga awoodiisa ku xiran uu ugu qaybiyo arrinta labaadna waxay ahayd markii caruurtiisa iyo qaraabadiisa la yiri maxaad iyaga sad bursiga u siiso shaqooyinka u siinaysa caruurta Soomaaliyeed oo kalena aad u dhaaftay jawaabtii uu bixiyay madaxweynuhu oo iyadana waad xasuustaan runtii dadku aad iyo aad fajaca iyo anfariirka ugu riday oo aan ahayn wax laga sugayay nin madaxa inuu ku hadlo ha u jixin ayuu ku jawaabay isagoo la hadlaya dadka kale oo madaxda dawladda ka tirsan oo leh caruurtiina iyo qaraabadiina mar walba iyaga horumariya oo shaqooyinka siiya markaynu eegno siyaabihii madaxweynuhu soo dhaqmayay iyo buurmadow maanta dooda uu keenay waxa weeye wax isdiidaya halka ma arko wuxuu buurmadow meesha uu si adag uga hadlay wixii aynu arkayno dad badan oo ay la yaabanaayeen marka madaxweyne xasan marka la eego duruufaheena iyo sida aynu nahay runtii waxa la doonayay inuu noqdo nin transformational leader ama nin isbedel weyn keena oo ummadan ka saaro banaanka ka dhiga dhibaatooyinka haysta oo midnimo la'aanta isdiidka isdagaalka kala taga fakhriga iyo waxyaabaha la mid ah nin ka saaro u guntada waxa ayay ahayd laakiin lagama sugayn inuu noqdo nin ma garanaysa noqda insensitive oo ma garanaysa aan ka damqan oo danayn yani waxyaabaha eedaha loo jiidanaya ama ku dhaqaaqa waxyaabo dhaawacaya midnimada iyo ma garanaysa isu soo dhawaanshaha dadka Soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ku qabaan dawladooda iyo hogaankooda runtii taas waa nasiib daro waxa kaloo meesha ku jira in sideedaba hogaanku uu u baahan yahay inuu daacad noqdo hogaanku hadduusan daacad noqon waa dhumayaan waa sharaftu waa dhumaysa kalsoonidana waa dhumaysa waxa kaloo muhiim ah
inuu hoggaanku runtii noqdo mid aan gaaridda dad badan u ogolaado inay qayb ka noqdaan oo wax ka yiraahdaan waana sida lagu tilmaamo dadka hogaamiyaasha wanaagsana inay maaragtay waxa loo yaqaano multi perspective dhinacyo badan inay wax ka maqlaan oo wax ka qaataan dabadeedna wixii iyaga marka ay isleeyihiin dantaa ku jirta ay isu keenaan laakiin ay hubiyaan in cid walba ay dareento runtii in la tixgeliyey oo maaragtay la maqlay arrintaas waa muhiim arrinta kale oo muhiimka waxa weeye madaxweynaha waxaan u malaynayaa dad baa la talinaya dad ka tegay Mareykan iyo UK iyo meelo caynkaasa oo arkay in xisbiyada markay talada qabtaan iyaga dad raacsan kaliya ay shaqooyinka iyo meelo badan u dhiibaan wadamada laba arrimood baa jira horta shaqaalaha dawladda ciduna ma taabato qof walba shaqadiisa siduu u haystay ayuu u haystaa waxa kaliya oo nimankan markay reer galbeedka ay awood qabtaan meelaha kaliya oo ay dadka iyaga raacsan keenaan waxa weeye halka madaxtooyada dad ka shaqeeya ama qaar ay ambassador iyo wax caynkaas iyo wasiiro jagooyin caynkaas oo kooban laakiin taa lafteeda waa mid loo siman yahay madowgii baa ku jira cadaankii baa ku jira eeshiyaankii baa ku jira cid walba ku jirta laakiin waa inay noqdaan dad ideology-ga iyo maaragtay siyaasadda iyo policy-ga dawladdu wadato dad runtii maaragtay aad iyo aad ugu riyaaqsan waa inay noqdaan hadduu madaxweynuhu uu yiraahdo cadaan kaliyaan keenaya waa laga diidaya waxa waxaad sameynaysaa xaq maaha teenuna sidaas oo kale la mid tahay marka dadka madaxweynaha la talinaya hadday yiraahdaan oo dadkan ku dhadhow reerkaaga keen iyaga daacad ku ataas khalad weeye waa fidnada abuuraysa marka fidnaha keenina oo ummadda Soomaaliyeed fidnada ka daaya taas waa midda labaad wadamadani waa wadamo xoogsaday oo horumaray runtii yani waxyaabahaasi maaha waxyaabo iyaga dhibaato u keenayo ku abuuraya laakiin inagu wadan nugul baynu nahay 30 sano iyo dheeraad burbur iyo isdiid iyo dagaal iyo balaayo ku jiray oo loo baahan yahay in laga bixiyo waxayna u baahan tahay hoggaan adag oo daacad ah oo cadaalad iyo xaq ka shaqeeya inuu runta arinta u istaago oo magaranaysa oo ka saaro ummadda waxaas taas ayaa loo baahan yahay laakiin looma baahna inuu hogaamiyuhu noqdo mid si kala saaraya oo ummadii maaragtay wixii ay diidaysay runtii si wadaya ma aha waxa kaloo muhiim ah inuu hogaamiyuhu noqdo mid damqasho inuu oo ka damqada waxa dadkiisu dhibaya ama diidaya iyo inuu ogaal yeesho war dadku maxay doonayaan waa inuu xaaladaha iyo duruufaha iyo waxay dadku rabaan uu ogaado runtii waa muhiim arrimahaas arinta ugu dambaysa waan ku soo koobaya waxa weeye boqor buurmadow arintiisa wuxuu ku soo gabagabay meesha waa lagu kala tagayaa waana arin runtii caado u ah ummadda Soomaaliyeed markii ay wax isku qabtaan inay yiraahdaan waa lagu kala tagayaa walaalayaal taas xal ma aha arrin wanaagsan ma aha waxayna muujinaysaa kartin xumo dad aan yacni faraqa u dhaxeeya iyo ma garanaysaa murankooda aan xallin karin taasi runtii ma aha waxa la hadii qoysku markay murmaan bal yiraahdo hal uu kala tago maxaad maranaysaa imise qoys baa wada joogi lahayd arrintu markii haddaba arrimaha sidaas oo kale ay noqdaan laba arrimood baa muhiim ah mid waxa weeye horta in la yiraahdo waa inaynu xal helo khasab waa inaynu xal helo way hadayna xal helin oo waxan ayna maaragtay ayna gacanta ku qaban maxaa ku xiga waa baaba iyo kala tagal sheegayo taasna qof ay dhab ka tahay ama qof doonaya ma jiro waana ognahay inaanay ahayn wax inoo cuntama iyo wax inagu hogaaminaya horumar iyo wanaag inaanay ahayn marka waxa muhiim ah in la yiraahdo waa inaynu xal helo xalku waxa ka imanaya marka dadka wax laga tirsanayo madaxda inay gar qaataan madaxda laftoodana waa inay gar qaadashadu yani kaliya inay gar qaataan ra'yiga loo soo jeediyo ay qaataan waa sax laakiin waxa muhiim ah inay gartaan inay jiraan wax xadidaya oo aanay dhaafi karin wax xadidaya ama xeer ha noqdo ama ma garanaysaa ra'yiga dadka ha noqdo ama ma garanaysaa duruufaha ha noqdeen yani waa inay gartaan wax xadidaya oo aanay dhaafi karin inay jiraan markay halka gaaraan waxa loo baahan yahay in laba tilaabo dib u qaadaan oo yiraahdaan okay aynu isnimaadno se wax u xalina oo ay dadka dhageystaan oo markay dadka dhageystaan dadku wixii ay rabaan oo macquul oo dhan meel dhexe la isugu yimaado wax la hagaajiyo qof heli karaa ma jiro wuxuu isagu rabo ama siduu jecel yahay oo dhan qof heli karaa ma jiro waa inaynu taageer waaqsanaa waa inaynu markaa noqonaa dad wax xaliyo oo dhibaatadooda xaliya dadka Soomaaliyeed waa inay gaar ahaan kuwa madaxda oo maaragtay ama madax dhaqameed ha noqdeen ama madaxda talada iyo dawladda ku jirta ha noqdeen waa inay joojiyaan
هلو كلا تغو تا ديارو منهن تا رنتي مركز لهذا هلو كلا تغو دب ما أهان قبا عنو runtii dhab ma aha laakiin waxaynu la anahay si kale oo aynu wixii u tibaaxno ama si kale oo aynu u dhigno ama xal kale meel kale aynu taas inoo fudud marka taa waa in laga gudbo waxaan raseynayaa xasan sheekh maxamuud ilaahay inuu afartiisa sano ugu dhameeyo nabadgeliyo dabadeedna hogaamiye Soomaaliyeed oo wanaagsan oo ummadan runtii hogaan wanaagsan u noqdo ka saara dhibaatooyinka in runtii ilaahay siiyo ayaan u barayaa waa Cabdi Maxamuud Qalla برنامج كيدين كيما جري معهد كوالدنمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.